السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن لها وإن سلام من وجود دافد كجوتين قف إذا لها الله وأنه حاجة برتقى دامني سنة برتقى اليوتيوب كأنه حاجة فضل قدر وعصبت هاي نوت سبسكرايب قلنا قدر وعصبين هون موجود أنا بقرطي أدو ما حصلت هاي كعجب هالعلنا هي أكشلي ما تحدوني برنامج شخص وحلا جري إنك حلو برنامج كميدة أو قيد كميدة أنت سوق قاعدي يو أنت أنا بصورة كفكرية وما عرفتي إن حقيقية يو إن ما عرفتي إن سؤال سوبيدية. اوكي انت maaragtay hadaan ku hormaro aan ogaaday waxaan tagay actually meelaha footada sawiranta lagu galo oo waan ka soo indhiidheynaa soo fiirinayay waxaan arkay dad badan horta oo maaragtay meelaha footada aad u buuxo jam kulay dadka qof fikirka fakaray oo fahmi kara jam dadka way buuxeen laakiin dhibaatada jirta taas ma ahana inay buuxaan dhib ma lahane waxaa dhib kale dadka maaragtay sawirka galay loo tariga haddana oo maaragtay WhatsApp loogu diraayo ama Gmail loogu diraayo oo haddana ku dhahayo maaragtay sawirka ii balanta garay oo dadka xujo uga dhigaayo oo maaragtay ku photographists oo isku dhibaataysan yihiin arkay markaan weydiiyay dadka aan gooni u weydiiyay qof oo adiga balanta garaysto weydiiyay aan ku dhahay walaal maxaa u balanta garaysto muhiim ma aha inaad balanta garaysto sawirka waxaa lagu apply gareynayaa online kan marka soo gudbinaysa marka waxay dhahay walaal in ma garanayo sawir soo galay in case haddii maybe kan laba rabo kan keen leedahay ayaa maaragtay kan u dhiibino qofkii apply gareynayo maybe dad inay apply gareynayaan aan jeclahay sawirka horta labadaas badan ku qaadanayeen maaragtay online-ka oo maaragtay WhatsApp-ka ama Gmail-ka wali waxa highly recommend gareynaya inay ku qaataan dadka Gmail-ka waayo Gmail-ka resolution-ka sawirka ma dhumaayo laakiin WhatsApp-ka resolution-ka waxba asirnaa qusinaayo hadda maybe ila aragtay hadii ila arkin ma kala garanayo marka dadka baranta gareysanayo oo maaragtay ma garanayo ay maybe sawir la iska doonaya lahay maybe qof aad sawirkiisa ay ku apply gareeyo oo maaragtay la imaada sawirka dadka markay la imaanayaan marka labadaba way keenayaan kii oo hardka ku hayeen iyo kii soft ku hayeen kulli soft iyo hardna maanta muhiim ma aha amalina inay idin sharaxo wixii hard tahay wixii muhiim soft tahay inay idin kala sharaxo ma loo baahno malinahay haddii idin dul marana laakiin soft waxaa la yidhahdaa kuwan lagu qaadan karo telefoonada laptopyada memory-ga waxyaalo kasta oo maaragtay meel gashanaysid oo meesha kasii daawacanaysid oo maaragtay arkaysid ayaa la dhahaa maaragtay soft hard waxaa la yidhahdaa kan ujeedada gacanta kusoo qaadanaysid la yidhahdaa hard ama la taaban karo softiga lama taaban karo marka saasaa la kala yidhahdaa labadaasna marka dadka baranta gareysanayo walaalayaal looma baahna wax la baranta gareeyo sawirka waxaa loo baahan yahay inuu ahaado soft ahaado loo baahan yahay oo online lagu apply gareynayo waayo markii xaal lagu apply gareynayo meel xafiis la geynayo maybe markaas waa lagaga baahnaan karaa in maaragtay sawirkaaga oo baranta gareysatid ma garanayo dadka kale inay ogyihiin inay ogeen marka safaarada tagaysid insha Allah oo guulaysatid waxaa lagaaga baahan sawir lagaaga baahan video tari ahaatana sawirkaasna hadda lagaaga baahno in hadda sawirka siigiisa lagaaga baahno marka guulaysatid ka bacdi safaarada tagaysid unbaa sawirkaas galaysid qaadanaysa mid kale oo su'aal laga soo weydiiyay waxa weeyaan baasaboorka actually baasaboorka su'aalo badan laga soo weydiiyay kale dadka dhibay ku haystaan baasaboorada helitaankooda ama waxa hoos ka soo galay iskuma diyaarinin miya ma garanay adiga wixii degdeg ay ku soo galeen way imaadeen dadka qof wuxuu leeyahay maaragtay baasaboor mukhasab baasaboor la ama apply gareyn kara dad waxa arkaysa kula imaanay dad ay soo sheegay bila soo sheegay dad badan ka hadlaan arki baasaboor la apply gareyn kara baasaboor la اوكي باسبور الان سدح شروط ان بال dadka loogu ogol yahay inay ku apply gareeyaan saddexdaasna aniga nama saameynaysa dadkan hadaan Soomaali waayo aniga kuma jirno meel maaragtay oo wadan ma joogno aan sharci ka heli karin wadan walba aan tagnana waa ka xankili karnaa safaaradeena ku taalo oo Soomaaliya ama maaragtay Itoobiya noqoto Kenya noqoto ama wadamo kale noqoto badana mustali way ku taala safaaradda Soomaaliya ilaa South Africa ay ku taala marka sawir waa soo heli kartaa baasaboor meesha ka soo qaadan kartaa ma ogi marka sababta oo dadka oo dad u sheekeynayo inay baasaboor la'aan la apply gareyn karo okay ka soo qaad baasaboor la'aan apply gareysay waad guuleysatay ka soo qaad adoo guuleysatay baasaboor la'aan apply gareysay sidee baasaboor ku heli kartaa ilaa bariga maali markaad guuleysatay oo tagtay safaarad tagtay waxaa lagu weydiinayaa baasaboorka ku soo apply gareysay oo baasaboor numberka meesha ku soo qoratay ayaa lagu weydiinayaa tolo meesha waxa ku jawaabaysaa su'aashaas is weydiiya اوكي باسبور نمبر laga baahan yahay inay waxa laga baahan yahay waqtiga baasaboorka dhacay bisha maalinta iyo bisha sanadka uu dhacay ayaa iska baahan yahay marka maxaa meesha lagu buuxinayaa aniga tan aan fahmi waayay oo maaragtay dadka dhan la yaabo taas ay qof wuxuu leeyahay baasaboor la apply gareyn karaa maaragtay apply gareysto هذا بلاغريسي محمد ميشاس waxa ku buuxin leeyahay isku diyaarsid waay okay hadaa guuleystid oo tagtay safaarada in lacag laga qaato caafimaadka dhigtid transportka maybe wadan kale aad joogto laga yaaba maybe in Soomaaliya joogto laga yaaba oo Kenya tagtid oo maaragtay Kenya safar u tagtid oo maaragtay appointment buuxisid oo tagtid bixi hadaa tagtid inta qash soo gal oo negative lagu soo siiyay maxaa faa'iido ah
hadda adoo dalkaaga joogo baasaboor samaysatid baasaboorkaaga waxay ku dhammaystiran yihiin inaad apply garaysid maxaa ka qurux badan oo beri kamaan aad isku hubtid garantii tahay inaa maaragtay baasaboor inkiisa lagugu qabsan karin midda kalena waxay ahayd high school dad waxay ku weydiinayaan aniga maaragtay high school ma dhammaynin shahaado ma haystid marka maxaa sameeyaan way adag tahay kolley soomaaliya hadan la joogaa wax feegaan samaysanayna ma naga ogol yahay wax ka qurux badan inaad maaragtay shahaado leedahay nasiibkaaga waa meeshiisa maybe su-aalaha lagu weydiin karaa haddii oo maybe wax feeg samaysatid oo wixiina kuu duubnayn oo yaan fahansaneen oo wixii laskaga baahan yahay oo iskuul lagu soo bartay isfahansaneen ayagaba sababtay uga dhigayaan inay necessary tahay oo galaas 12 qofka ama 12aad ama form 4 kasoo baxa muhiim u tahay ay u weydiin u rabaan wax meesha ku duwan ah marka dad samaystay shahaado feeg ah samaysatid oo adiga wax soo baranin oo maybe lagu yiraahdo wax qor ama su'aal lagu weydiiyo waxaas micnaheedu maxay tahay su'aal raqiis lagu weydiin karo oo maybe secondary lagu barto ama form 4 lagu barto wixii hada garan weysi ka waran ولو يتحمل سيدا نيجاتيف لو وصلنا لو دي ده قرش وكاب حي أو في ساعة قرش وكاب حي أو في ساعة تلك كلا أكو تكتها قرش وكاب حي عفمات كمرتها قرش وكاب حي ليش أجوكتين أما صيحتين أو تلك هذا تدل جو قرابة هاتوا ومارت واحد من السنين السريعة وكاب حي مركم حاسة إذا مركا إن تذكر إنه واحد سكوا خبصنا قروح بدن وين فهنسيه من وايد قال هذا وحيد إذا وحي ربنا دي وحي ربنا وشو تروح إنه كسر الكوسارة يعني نيجاتيف مع أساس الوصول جديد قرش وكاب حي لو قبنا مضحك وحرنا مركي محا وحا وفيكسر واي marka ku degdegina wax walba waxa loo baahan yahay wax maaragtay maaragtay basically oo saxan yihiin documentiga in ku saxnaadana qurux badan ana idin ku wada aan ku talinaya as nuux ahaan marka nuuxiga iska hadlo saasay ku talinaya kale su'aal kale dad ma qaadi karaa dad ma wadi karaa marka guuleysto kale aniga xagaas ma geyn karaa wala soo weydiiyo wallahi waxay ku dhiban garasanta marka xagaas tagto shaqaysatid oo maaragtay qof isku filan noqotid ayaa laga rabaa warqad kale jirto dadka oo maaragtay guuleystana oo waxa ayagana ay soo weydiiyeen warqad ay oo jira ay 135 min la yiraahdo jirto oo affirmative ah adiga ma buuxinayso warqada laga baahno waxa looga baahan yahay sponsorkaaga warqadaasna waxay ka diidaysaa inaad noqotid public charge information badan aad kala soo qaaday insha Allah billahi kareem waan soo socodsiin doonaa next video insha Allah billahi kareem video waan tasan jeclaysan soo gabagabeeyo insha Allah billahi kareem marka ayaan noo balana guuleysa insha Allah billahi kareem